السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا دين سلام يا رمان أمد الصوماليات وحان ليهاي رمضان مبارك ميلكستو أدجوكتان. ما أنت وحان دين وضع وربحين كسابسان محاكمة دي كسعوتي وطن كمرايكنكا قارهان قبل كفرجينيا ودحيسي كورونايل يوسف عبدي iyo tuke inta loo yaqaano iyo ninkii loo jiray la fasite xaaladdu horta soo far meel wanaagsan ayay maraysaa. Soomaaliya guushu waa inaga maalintii shanaad ayay gashay maxkamaddu gabagabadiina waa maanta 4 galabnimo wixii ka dambeeya ayaa lagu dhawaaqayaa natiijada. waxaa dhageysanaya guurti fara badan oo wadanka Mareykanka ka soo jeeda arinta iyaga la wareegay. ninkii la fasitay ayaan warkiisa marka idin siinaya iyo maxkamaddu sida u dhacday. ninkii la fasitay ahaa horta kiish dhan oo wuxuu sitay lafa ah wax la qiyaasi karo oo DNA laga qaadi karo waxa la helay 3 lafood بالمعجزة لا أركي صدح لفوض أي لفيه أوسيتي يدوا لا يحسوقي ولا يلاقي دولة باي لا يسي يعني فهم لقي جيبة أنا جنا دمشق ليجتجي وحاسو شوي إن صدح ذي لفوض مد وحنقطة أنيمال وحنقطة حيوان هل كان على دقة وواد ويد لابد بلوت كهر بيد ما تلفتاس لفتي لبعض waxay dhimatay waqti lagu qiyaasay 77kii DNA Soomaaliya waa laga waayay iday tahay la garan maayo. hal mid baa la helay wax Soomaaliya ku jirta taasna 2 bilood ka hor ayuu qofkaasi dhintay. waxaan u maleynayaa xabaashu kala soo baxa waray xabaalaha la adkaysto dad xabaalaha qufaya baa jira. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بينو كما قلنا نينكاس رير ميغا إلا صور دبي إلا صوح دوحي اللي دونا لسكاقا صور شيغي إلا ويري مرايكان بالو غينيا بالكالايو نين باواكولا دقالا دي كشيكي وحانا وطا نينكان نين سيئن انتا وشاقايا oo dadkan daanu waxa afkayga uma soo marin kare waan baka xishoonayay dadkan reer qoomaluud ah ayaa فيلم كرودن وطا ومحكمة la taagan iyo 2 naagood oo dibjiriinaho meelaha yiraahdo xuquuqda bini'aadan kan u doodna 3 qof iyo isagii iyo looyarkiisa ayaa maxkamadda taagan oo jooga. shalay looyarkiisi baa hadlayay markii looyarkiisu hadlayay de looyarku protocol ila waa looyar meeshuna waa maxkamade ayuu ku hadlayaa isagoo oo hadalkiisi yacni wixii dacwadii uu soo sheegtay isagoo oo marinaya ayuu boodi markaasuu warninka naga qabta ninkani si jilicsan buu hadlayaa ninka naga qabta warninka naga qabta markaasaa lagu yiri sit down sir stage baa lagu yiri waxa weeyaan lawyer baa leedahay meeshan qof ma hadlo lawyerkaaga ku qanacsano baa lagu yiri hadii kale aad lawyerkaaga ku qanacsanayna de lawyer ka raadso laakiin meeshan lawyer baa ku hadlaya aamus 3 jeer buu ka markii dambana nin la socday buu yiri war ii turjun adigu oo ninkan si jilicsan buu hadlayaa ii turjun. labadii maalmood oo ka horeysana hadal markii hore wuxuu yiri meedahaan baa la iga tagay ciidamada ilaayay dawladii Soomaaliya ilaysay aniga familygaygiba waa nala duubay waa nala gubay. markii maalintii dambe ee labaadna wuxuu yiri wax allaale waxna lagu sameeyay garan maayo anigu waaga waan yara hadalkiisi baa iskhilaafay isaga iyo masuubadii la socotay ila waa masuube dad ma oran karne waa masuube waxa weeyaan fooda iskula jiraan. looyarkiisi walaac badan buu shalay muujiyay wuxuu doonayaa kiiska dib inuu dhigo. kiiskana waxa la wareegtay qolo wadankan sida caaqiladeena oo kale ama garaadadeena oo kale baa la wareegay oo dhageysanaya oo go'aanka maanta ka soo saaraya. maanta maxkamaddu waa jooga isagoo hawada maraya cirka يا أو وتد برنامج كله أو وحي شلي أو يرسو إلا أو إستدي lawyer كي بتشق سقوا نيكي lawyer كوها ما شاء الله وأقول بانو يجهد صورة يسافر وعي
ninkana ay wataan ما شاء الله وحويان حالد صوفار ميل وناكسن بي مريسا محكمة دمانتا وحا جوغا سوماليدي او دان ayaa ku dhan wixii Virginia nawaaxiga Virginia deganaa iyo wax gobolada ka yimi intaba waa la joogaa iyaguna maxay haytay dadkii jinka ah ila waajinay dadkan bismillaahir rahmaanir rahiim waligay dadka xun waa maalintii ugu horeysaan arko waligay dadka ma arkin dadkaas iyo iyagina leen bay fadhiyaan waxaan maqli jiray ilaahu dadka naga tukoori no Somali buleey no Somali ha maanta wuxuu soo qaatay shaar yar calalkii ay la wareegi jireen buu soo gashada wuxuu ka soo jeedaa kan isaga hal balooyar buu qabsaday muu la fasitay ya anigu odagan la fasitaan u bixiyay waa oday sakraada waa nafi ku jirin ya wadankana waxa keenay baa lagu dhigay ninka reer Qoomalood ayaa keenay oo yiri kaalayo meelo waxaan ku geynayaa xuquuqda loo doodo daanu wax dilaayay nimankan garan maaye cuqdada qabe ciilka qabe يا marka waxa weeyaan Soomaaliyeey xaaladu meel wanaagsan bay maraysaa hadda kiiskuna maanta soo dhamaanaya niyada khayr u sheega meeshan tuka waxa u doodaya looyara adag ayuu samaystay isagu joog malaha mana hadlayo dadka Soomaalida ee meesha joogaana waxay ku joogan si sharaf ah oo xushmad leh oo way garanayaan systemkii bay garanayaan oo dad Amerikaan ah oo qaylin maayaan shalay isaga waxa la damcay in laga saaro meesha gabigiisa walaalo war laga tag marka waxa weeyaan guushu waa inagu Soomaalinimadeena ku taaganahay muslimnimadeena ku taaganahay calankeena ka carari mayno wixii dulmi wada ee dhibaato wada ee maxay ahayto cuqdad ku jirto ee doonaya inay ictiraaf lafa ku helaan ya la fadruwa ilaahay baan idinku dhaarshay Soomaaliyeey bal fadruwa soo qaadan lahay waxaase la sii yaabay shalay dheenangi markii la cadeynay waxaase la sii yaabay qofkan waqtiga dhow dhintay uu laftiisa soo qaatay ruux xabaalaha la ilaaliyo xabaalaha magaciyaha lagu qoro halana jiro xabaalaha waxa weeyaan dadka dhinta dad ba la ku soo guranaya baco Soomaaliya meel ay joogto ha israacdo Soomaalidu waa dad isjecel waa dad qofkooda la dulmeeyo u taagan habeen iyo maalinba gaar ahaan reer Columbus waxaan leeyahay waan idinku hambalyeynaa sida sharafta badan leh ee aad uga dhiidideen tuke arintiisa iyo dadkan Soomaalidiidka ah ee lafaha sitay lafaha xambaarsan ilaahu lafaha noo xambaar rabbigayo anagoo ifka joogna bismillaahir rahmaanir rahiim ummadii waa yaabtay gaaladii waa yaabantay bal lafdurwaa bal muxuu ka soo qaatay ila niman kale lafaha ay soo qubaanba YouTube-yada waxaan ku arkaa lafa la sido ay leeyihiin waa nala xasuuqay waa nala laayay waa dad nacayb dawlad nacayb dad kale ma waa dad nacayb anagu dad gobobaanu nahayo dagaalkii kalshaale ee wixii ka dhacay la ogaa ya ma nidhaahno xitaa waa nala laayay waayo waxaan ognahay inaanu rag isqabanay ragna meesha ka dagaalamay ragna ku dhintay ragna ay laayeen waligay la fasoo guran mayno waxaana waxa keenaysa adayga iyo isku duubnida iyo Soomaalinimada aanu aaminsanahay ayaa keenaysa laakiin niman kale waxa weeyaan hawl kale wataan maradan cid ictiraafaysa iyo cid dhageysanaysa ma jirto Soomaaliya waa mid calanka Soomaaliyana waa mid kaasa lagu taagnaanaya siniin sanan haday taagan yihiin oo ay konton jawaan oo lafa soo urursadaan meel ay u socdaan xaafadaas ma jirto meel allaale meel ay u socdaan ma jirto nimankaas Soomaaliya ay kamid yihiin waa Soomaalinimada ha ku adkaysteen qismkooda waa la siinayaa ha yimaadeen miska wada hadalka laakiin korneyladii iyo dawladii Soomaaliya sharafta badnayd dadkii ka tirsanaa marba maxkamad keena marba waxa tiraahdaan waana la laay waana la xasuuqay habarta ordaysa ya shalay habrihi ma bayman markii ninkii dhamaa maxay ahaytoy mudduciga ahaa uu booday ayri warninka naga qabta waxa weeyaan si jilicsan buu hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim xitaa qofku marka la soo kaxaynayo borotokoolka maxkamadaha waa in loo soo sheego waa in la yiraahdo lawyer-kaaga ku hadlaya isaga ayaynu arinteena u xil saaranay aamus afkaaga hayso marba gabi saas uu gabi dhaclay adigu uu gabi dhaclay marba gabi buu saas ugu qaaday wuu ka caafariistay wuxuu iska dhigay nin dhibana ah yahay qaal saas u yaabtay sidoo baa lagu yiri seer fariiso ku
ku kalsoonow haddii kalena orodoo doono looyar kale mid labaad nimankii guurtida ahaaye meesha warka dhageysanaya waaba la yaaban yihiin ilaa hadda waxay ku leeyihiin annaga waxa kan odaygii yaraaya dee laga roonaha waxaan maayaa anigu de qof islaama ma odhan karo dadkaasuu ku biiraya waa rabadaan ma odhan karo laakiin dee ninka maanta kursi la fadhiya ee layn ay wada fadhiyaan reer qoomaluud yaahe bal maxaad ka malaynaysaan Soomaaliya ilaahay baan idinku dhaarshay idinkaan idin dhiibay maxaad ninka ka malaynaysaan dad oo islaam sheeganaya oo waxaan ku uri dee diinta islaamka ku abtirsada yaa oo nimanka kan dabadoodii fasaxay yaahe isku dhinac yihiin isku jaal halkaas dadkii uga iljabinaya wallahi billahi tallahi waa la yaabay guul baan leeyahay hurre waxaan leeyahay guul Soomaali waxaan leeyahay dadka israba ee midnimadu ka dhab tahay ee Soomaalinimada doonaya ha israaco inta kale ee xumaha wada ee dadka xun ah ee dadka jinka ah waa jin anigu dadka ma oran karo waa ins ma oran karo waxa weeyaan qof bisha Ramadaan dad dhibaataynaya oo la fasita oo doonaya in uu wax xun u sheego oo qabiil iska doonaya oo doonaya oo kooraya walla meesha wuxuu shalay ka yiri dadba waa yaab faqash baan la soo faqash magaal baa faqash walaada faqash mar baan sir ma tiraahdaa naga fadhiiso sawiriyo alwaaxa marka ku talxtagi maayo waa Ramadaan ku talxtagi maayo ninkaas laakiin waxa la yiraahdaa hadii gurigaaga qof islaama aad tahay oo lagu soo weeraro waa inaad istifaacda dadkan waa dad daalimiin ah diyaaraday soo saarayeen waxa soo dhanna waxa ka dambeeya oo arinta tan hoosta ka soo hulaaqinaya waa musaandaraab naf miyuu u hayaa dadkiis hargeysay ka ololeysay naf uma hayo waxa weeyaan waxay isleeyihiin waa nala xansuuqay aad ku dhageys aad waxa la idinku siiyo laakiin wax lagu siinaya ma jirto waxay helayaan ma jirto hadda cuna qabateen xoog le baaba saaran iyagii baaba shufbeelay oo ololeeya waan idin salaamaya meelaad joogtaanba waxaan leeyahay Soomaali one love khayr baan idin rajeeyay